بسم الله الرحمن الرحيم. sidee loogu sheegaa xaaskaaga inaad jeceshahay? dumarka waxay muhiimad ballaaran siiyaan inay ogaadaan jaceylka ninkooda uu u qabo. Culimada guurka ku takhasusa waxay leeyihiin markay xaaska calaacalayso waxay si dadban ku dhahaysaa itusi jaceylka ay qabto. nabigeena Allahumma salli wa sallim alayhi Aisha ayaa weydiisay yaa rasuulallah jaceylka ay qabto siduu yahay? markaasuu nabiga Allahumma salli wa sallim alayhi wuxuu yiri waa sida xarig todcan oo kale oo xoogan. marka mar walbo Aisha waxay weydiinaysaa xarigii ka waran ma xoogan yahay? nabigana wuxuu leeyahay sidii hore ma ahan si ka daran ayuu u xoogan yahay. marka Aishana waa farxaysay. marka taasna waxay ka mid tahay sunnada nabigeena. hababka loogu sheego jaceylka waxa loo qeybiyaa 5 qaybood. 5taas qayboodna nabigeena Allahumma salli wa sallim alayhi wuu ku dhaqmay. afkaaga oo aad ugu tiraahdo xaaskaaga inaad u sheegto sida arabtidba ugu sheeg. yani nin oday ah aan maqlay xaaskiisa dhahayo markii aan wajigaaga arkaba paracetamol uma baahni madax xanuunka dhan waa idaaya. marka sida aad rabto ugu sheeg. sidoo kale waqti tayo leh inaad siisaan ama inta maqaayad aad tagtaan ama inta guriga xataa meel inta fadhiisataan oo mobilka la damiyo oo aad sheekaysataan oo aad cuntaysaan iyo hadiyad inaad isweydaarsataan. mid saddexaad يعني نبي وحو يري تهادو تحابو اسو هدية وازجعلاني ساني تن افرادنا اسل عياريستا اما قلمدا اما راحبا تاسنا وحي كمي تهي هابكو لو قد بيو انا حاسكا جعشهي سيدو كالي هوش قريقا او ليس لخبتو معنا نبي اللهم صلى الله عليه وسلم عليه حاسس كيسا وكو كالمين جري هوش قريقا آدنا اين وجعليسن جرين مركا اديقا وحالا قباهاني هاي شنتاس خيبوت midka ay xaaskaaga aad ku jeceshahay inaad ku dhaqanto. maxaa yeelay dadku waa kala duwan yihiin, xaasasku waa kala duwan yihiin. xaas walbo waxay buundo badan ku siisaa mid ka mid ah 5tan. waxaa jirtay sida nin oo xaaskiisa ay tiri weligaa waa ku jeclahay ima dhihin. ninkii intuu yaabay wuxuu yiri waryaahe duruucdii iyo taqamkii weynaay iyo wixii oo dhan oo aan cumrada kaaga soo gaday kaas jecel maahano. marka ninkan wuxuu isticmaalay luqadii hadiyada ayadana waxay rabtay inuu afka u sheego oo ka dhaho waa ku jeclahay. marka ogow macna sida jaceylka ay xaaskaaga u fahmayso taasna ugu sheeg. waa walaalkiin Bazi Busuri TV-ga Universal Somali TV. barakallahu fiikum.